السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبنا قرية سود ودا هذا بالكم وحن كلوا ذاك دونا دور قضب وجواد مسلمة يكون كسبة كرتونين كذا، يعني يكون سوجيدين كرتونين كذا. هذا وحن كعصنا الفيديو أنت بالله من جنرال كنا سبسكرايب نصارته سيدك الفيديو لك نصار سينا شرقي. guurka ka hor doorashada ninka gabadhu intaanay guursan ka hor ha ku dadaasho doorashada inay wanaajiso gabadha sidaa yeesha waxay cagta saartay dariiqa guusha iyo liibaanta islaamkuna arrinta waa inugu baraarujiyey inuguna dhiirigeliyey rasuulku naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yidhi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawajuuh ilaa tafcaluu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir haddii uu idin yimaado ninaad raalli ka noqotaan diintiisa iyo akhlaaqdiisa u guuriya haddii aad sidaa yeeli weydaan waxaa dhulka ka dhici fidno iyo fasaad badan sifada ninka wanaagsani marka waa diin iyo akhlaaq wanaagsan gabar yahay haddaba ninka ku dooro oo ku qiimay labada arrimood oo haddii aad ka hesho ku dhow oo ayaan ku dhaafin taabiciga weyn ee xasan albasri ayaa nin kula dardaarmay oo ku yidhi gabadhaada u guuri mid diin u saaxiib ah haddii uu jeclaado wuu karaamayn haddii uu nacana dulmin maayo laakiin maanta marka aad u fiirsato bulshadeena waxaad arkaysaa in dad badani ay ka dhigteen guurka mashruuc ganacsi oo ninka lagu qiimeeyo wuxuu adduun hayaa oo la iska indhatiro diintiisa iyo akhlaaqdiisa bal u fiirso xadiidkan nin ayaa soo mara qolo meel fadhida rasuulka ayaa weydiinaya oo ka odhanaya ninkan bal ka waran maxaad ka odhan lahaydeen waxay yidhaahdeen ninkani wuxuu mudan yahay haddii uu gabar soo doonto in la guuriyo haddii uu shafaaco kaa dalbadana in laga aqbalo haddii uu hadlana in hadalkiisa la maqlo kadibna wuu aamusay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee nin kale oo ka mid ah fuqarada muslimiinta ayaa haddana soo maray isla bartii rasuulkana wuu weydiiyey oo wuxuu ku yidhi bal kanna ka warrama waxay yidhaahdeen kani wuxuu mudan yahay in haddii uu gabar soo doonto inaan loo guurin haddii uu shafaaco kaa dalbadana inaan laga aqbalin haddii uu hadlana inaan la dhegaysan nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yidhi kani wuxuu ka khayr badan yahay dhulka muggi yacni kan dambe ee miskiinka ayaa kii hore ka khayr badan dhulka muggi taas macnaheeda maaha inaan gabadha muslimadda ah kula talinayo inay guursato nin faqiira laakiin waxaan u jeednaa nin faqiira oo wanaagsan ayaa kaga khayr badan nin qani ah oo faasiq ah qodobka koowaad adeec ninkaaga gabadha muslimadda ahi waxaad ogaataa xasiloonida nolosha iyo inaad ku guulaysato nolosha guurka kuna noolaato rayrayn iyo farxad waxaa saldhig u ah adeecida ninkaaga waxaad ogaataa gabadha muslimadda ahi in guurka u yahay shirkaduna sida aad ogtahay waxay u baahan tahay maamule kaas oo nidaamiya oo isku daba rida arrimaheeda sidaa daraaddeed ayuu ilaahay ninka shaqada u doortay ilaahay wuxuu ku yidhi qur-aankiisa الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم raggu iyaga dumarka ka sareeya waxa ilaahay ku kala fadliyo awgeed iyo waxa ay bixinayaan oo maal ah gabadha muslimadda ahna marka waxaa la gudban inay maamulkiisa ogolaato oo ay ku adeecdo oo ay u fahanto in adeecitaankaasi yahay mid cibaado ah oo ay ilaahay ugu dhowaanayso nebigu wuxuu yidhi naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee idaa sallaytu almar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa xafadtu farjaha wa adaacat zawjaha qiila laha dkhuli iljannata min ayi abwaabi iljannati shi't haddii ay gabadha muslimadda ay tukato shanteeda bisheedana soonto farjigeedana xafido ninkeedana adeecdo waxaa lagu yidhaahdaa jannada ka gal meel allaale meesha aad doonto adeecidda laga rabo gabadha muslimadda ahi waxaa soo hoosgelaya kow marka uu yeero inay ajiibto waxa uu doona ha ugu yeeree inay hadalkiisa maqasho haddii uu firaashka u yeerana ay si degdega u maqasho haddiise ay diid waxay noqonaysaa mid dembi gashay oo ilaahay caasisay oo lacanadda malaa'igta mutaysatay sida uu yidhi nebigana naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee idaa daca arajulu imra'atahu ilaa firaashih faabat fabaata qadbaani calayha lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix haddii uu ninka xaaskiisa firaashkiisa ugu yeedho oo ay diiddo oo uu caro ku waabariisto malaa'igta ayaa lacnada ilaa inta waaga uu ka baryaayo 2 in aanay guriga ka bixin isagoo u idman mooye adeecidda waxaa ka mid ah inaanay guriga ka bixin isaga oo u ogolaada mooyaane
bixitaankeeduna waa inuu ahaado mid waafaqsan sharciga oo ay jirkeeda xijaabka sharciga ah ku sii daysaa oo indhaheedana laabtaa marka ay dariiqa socoto, lugaheedana ayna dhulka ku dhufan. Haddii ay cid rag ah la hadlaysana ayna hadalkeeda u dabcin. 3 in marka uu maqan yahay ay xifdiso nafteeda, maalkiisa iyo carruurtiisa. Adeecida waxaa asal u ah in gabadhu marka ninkeedu safro ay nafteeda xifdido, waayo nafteeda waa ammaano. Inay maalkiisa xifdido oo aanay ku bixin ilaa wixii isagu ogol yahay maaha, marka laga reebo wixii ay og tahay inuu raalli ka yahay, sida sooridda martida ama qof gaajaysan oo ay cunto siiso. Wixii intaa ka soo hadhay waa inay ka digtoonaataa. Rasuulkuna wuxuu yidhi: khayru nisaa idaa nadarta ilayha sarratka, wa idaa amartaha adaacatka, wa idaa qibta canha xafidtak fii maalika wa nafsiha. Dumar waxa ugu khayr badan ta marka aad eegto ku farxad gelisa, marka aad amartana ku adeecda, marka aad maqantana xifdida nafteeda iyo maalkaaga. Gabar yahay, waad u jeedaa in Qur'aanka iyo sunnuhu ay adkeeyeen in gabadhu ninkeeda adeecdo. Adeecidaasi waa mid aad ninkaaga qalbigiisa ku kasbanayso, waa mid gurigaaga ka dhigaysa meel xasiloon oo bilaa buuq ah, bilaa hadal ah, bilaa dagaal ah. Haddiise laga waayo adeecida ninkaaga, ogow in gurigaagu uu noqon doono meel aan xasiloonayn oo aan deganayn. Gabarya muslimadda ahi ka soo qaad in gurigu yahay dowlad. Dowladdaasi haddii wasiiradeeda, hogaamiyaasha ciidanka, shaqaalaha iyo shacabkuna ay yihiin qaar u hoggaansan madaxweynahooda, dowladdaasi waxay noqonaysaa mid nabadgelyo ku noolaata, barwaaqo iyo horumar. Haddiise ay dowladdu tahay mid uu ku jiro isqabqabsi siyaasadeed oo madaxweynaha laga hor yimaado, waxaad dareemi kartaa dhibaatada ka dhalan karta arrintaasi iyo saameynta ay arrintaasi dalka ku yeelan karto. Walaashayda muslimadda ahi, gurigaaguna waa dowlad oo kale. Marka adigu kala dooro in dowladda aad wasiirka arrimaha gudaha ka tahay ay noqoto mid kala dambeyn iyo is-ixtiraam leh, iyo inay noqoto mid fawdo ah.